Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada daawadayaasheeda aanu jecelnahay muuqaal cusub oo ku saabsan wixii ka soo kordhay wararka ciyaaraha iyadoo cudurka coronavirus uu saameyn weyn ku yeeshay ciyaaraha kubadda cagta iyo weliba noocyada kala duwan ee isboortiga. ciyaarta ay lahaayeen labada kooxood ee Real Madrid iyo Manchester City ee ka tirsanayd koobka horyaalka kooxaha Yurub ee loo ballansanaa maalinta Arbacada ee soo aadan ayaa dib loo dhigay sababo la xiriira kadib markii laga helay cudurka coronavirus mid ka mid ah ciyaartoyda kubadda kolayga ee kooxda Real Madrid. Sidoo kale ciyaartii kale ee Juventus iyo Lyon dhexmari lahayd ayaa iyana dib loo dhigay kadib markii uu cudurkani ku dhacay mid ka mid ah xidigaha kooxda Juventus. waxaana sidoo kale ciyaartii u dhaxaysay Barcelona iyo Napoli lagu ciyaari doonaa garoon maran oo bilaa taageerayaal ah. kooxda Leicester City ayaa iyana ku dhawaaqday in dhowr ka mid ah ciyaaryahanadeeda ay ka muuqdeen astaamaha cudurkani. ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo ayaa lagu karantiineeyay magaalada Madeira kadib markii xidiga kala dheela kooxda Juventus ee lagu magacaabo Daniel Rugani laga helay cudurka dilaaga ah. Ronaldo ayaa u duulay magaaladii uu ka soo jeeday ee Madeira kadib guushii ay kooxdiisu ka gaadhay Inter Milan axadii la soo dhaafay iyadoo ay kooxdiisu siisay 3 casho oo fasax ah. xidiga reer Portugal ayaa ahayd inuu dib ugu soo duulo magaalada Turin maalinkii Arbacada ahaa ee la soo dhaafay balse wuxuu hadda weli joogaa magaaladii ku dhashay kadib markii cudurkan laga helay saaxiibkiisa ay isku kooxda yihiin. qoraal lagu soo qoray bogga Twitter-ka ee Juve ayaa u dhignaa sida tan: kooxda Juventus waxay diyaar u tahay inay dhaqan geliso dhammaan karantiineynta uu xeer ku dhigayo iyadoo lagu fulinayo dhammaan ciddii taabatay ama ka agdhowaatay xidig. waxa kale oo ugu dambeeyay cidda uu saameeyay cudurkan ciyaaryahanka da'da yar ee kooxda Chelsea Callum Hudson-Odoi iyo weliba tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta. tan ayaana keentay in ciyaartii ay lahaayeen Arsenal iyo Brighton dib loo dhigo. dhanka kale qoraal ka soo baxay kooxda Chelsea ayaa lagu sheegay in ilaa axadii la soo dhaafay uu xidigani muujinayay astaamo u muuqday sidii qabow galay oo kale balse habeenkii xalay ahaa ayuu positive noqday baaritaankii lagaga sameeyay cudurkaasi. xiriirka kubadda cagta ee Yurub ee loo soo gaabiyay UEFA ayaa daah ka qaaday inay qabanayaan shir iyagoo 55 urur ee xubnaha ka ah kala munaaqashoon doona in la joojiyo ciyaaraha wixii hadda laga bilaabo. cadaadis daran ayaa saarnaa UEFA kaasoo lagaga dalbanayay inay ficil ku dhaqaaqaan kadib markii cudurkan dilaaga ahi uu si ba'an ugu sii faafayo dunida daafaheeda. qaar ka tirsan ciyaaraha Champions League ee usbuucan dhammaaday ayaa la ciyaaray iyagoo aan wax taarabuun ahi fadhiyin halka kuwo kalena la soo buuxdhaafiyay garoomada. habeenkii Khamiista ahayd ee la soo dhaafay ayay daaha ka qaaday UEFA in shir qabsoomayo Talaadada inagu soo aadan kaasoo lagaga hadlayo jihada la qaadi doono. war ka soo baxay xiriirka ayaa u dhignaa sida tan: annaga ku baraarugsan faafitaanka cudurka COVID-19 uu ku faafay Yurub iyo weliba WHO oo sheegtay in cudurkani uu gaaray heer pandemic ah. UEFA waxay shir ku martiqaaday xubnaheeda 55 ah iyo weliba gudiyada horyaaladooda waxayna intaa ku sii dareen in shirka loo qabanayo qaab video ah oo qof waliba meeshiisa ka soo hadli doono. waxaa laga wada hadlayaa dhammaan koobabka iyo horyaalada maxalliga ah iyo weliba kuwa heer qaran oo uu ku jiro Euro 2020. waxaana dhambaalkan lagu soo afmeeray in xidhiidho dheeraad ah la sameyn doono kulankan kadib. nabadgelyo iyo nabaadiino daawadayaal, waxaa halkaa inagu eg barnaamijkii wararka ciyaaraha oo aynu ku falanqeynaynay saameynta uu cudurka corona ku yeeshay ciyaaraha Yurub. ilaahay dhibaatadiisa iyo sharkiisaba ha inaga hayee. fadlan ha ilaawin inaad like iyo share siisid muuqaalka sidoo kalena aad channelka subscribe ku caawisid adigoo daaraya gambaleelka digniinta.